weligaaga isdhihin qofkaasi ama qoftaasi maxay ii nacban yihiin ama maxay igaaga aamuseen waxaa dhici karto naceebkooda ama aamusnaantooda inay faa'iido ay ku tahay story yarisaar waa inaan kuu sheego nin caddaan cunsuriyaa jiri maqaayuu soo galay dadka oo maqaayada fadhiyan ugu badan waxay ahaayeen dad caddaan ah marka kursigiisa markuu ku fadhiistay geeska oo fiiriyay nin madow uu arkay wuu xanaaqay cunsuri waaye marka ninka waiterku waa cuntada keenay wuxuu dhahay kaale dadkan caddaan meeshaan fadhiyaan dhan uu dhahay cabitaankooda casiirkooda cuntadooda wuxuu dhan anaa leh uu dhahay maanta anaa dhiibaay laakiin ninkan madow xun wax dhan asiinin caadi waayaa loo dhahay dadka caddaanta waxooda dhan way cuneen way caaween rasiidkiyaa loo keenay marka cunsuriga dhiibaa la lacagtaan uf oo dhahay qaali waayuu dhahay laakiin waa dhiibaayuu dhahay ku xumeen ninka madowga xun daraadiisa marka ninka oo cunsuriga intuu albaabka oo ka bixin gadaaluu san u soo fiiri ku xumeen camalno ninka madow uu isceli waay marka inuu istaagiyuu dhahay ninka caddaanka waa ku mahadsan tahay oo maqaayadeeda maanta ku casuunta dadkan dhan maalin walba ii soo noqo marka wax walba inay khayr laba wiil saaxiib waa jiraan saaxiibka koowaad saaxiibka labaad uu dhahay bax hilibka uu fiican maanta soo gadaa ku qadeeno saaxiibka labaad wuu baxay wuu soo laabtay soo gacantiisa wax ku haanin saaxiibka koowaad uu naxay hilibkii uu dhahay ka dalbad wuxuu dhahay hilibkan iska dhaaf uu dhahay maanta wax ka fiican ab guriga noo taala soo ogaaday maxaa ka badaa ii sharax uu dhahay wuxuu dhahay maanta meeshii hilib lahan aaday waxaan u dhahay hilibka uu fiican isii ninkii hiliblaha inuu hilibkiisa ii faaliyo wuxuu dhahay hilibkeyga maanta timir ay ka macaan tahay wuxuu dhahay anin waxaa is dhahay timir ay saas u macaan tahay ma timir soo gato mees timir lahan aad waxaa dhahay timir isii ninka timir laha wuxuu dhahay timirteeda maanta malab ay ka fiican tahay ninka mees malabkaan aad ninka malabka wuxuu dhahay malabkeyga maanta biyey ka saafaysan tahay wuxuu dhahay saas dee tahay biyo guriga way noo taala maxaa u soo gadanaa saaxiib koowaad wuu qasli wuxuu dhahay smart yaa tahay laakiin kabtaadaa soo halaagtay dukaankiisa ordaysa maanta saaxiibka labaad wuxuu dhahay maya kabteeda ma gashan inuu dhahay kabtaadaa maanta gashte marka saaxiibkaaga keligiisa ma sahlaago abartuuni keligiisa miska haleeyo adina hore kaaga sii haleeyay maanta haddaa ii dhahdid see tahay oo ani ku jawaabo waa fiicanahay waa naxaysaa laakiin haddaan ku dhaho waa fiicanahay waa farxiisaa halkii hadalay ahayd laakiin afkayga ugu soo baxay differentay ahayd shakiriisaar waa inaa kuu sheego saa ku ogaatay hadalka afkaaga soo baxay qiimuhu leeyahay ninaa jirin nin taajir ah habeen wuxuu ku riyooday ilkiisa dhan ee jajabeen marka nimanka oorayada sharxayna u soo wacay ninka koowaad wuxuu dhahay sansaana ku riyooday maxaa dhici karto ninka wuxuu dhahay cidaada dhan hortaada ku dhimanayaan uu dhahay ninka boqortooyada wuu xanaaqay ninka aan la xiro uu dhahay oo edeb daran yahay nin labaad uu soo wacay sidii uu dhahay nin saddexaad uu soo wacay ninka aqli leh oo ahay wuxuu dhahay sansaana ku riyooday maxaa dhici karto ninka saddexaad wuxuu dhahay mabruuk ninka boqortooyada wuu farxay maxaa jira uu dhahay wuxuu dhahay ninka gurigiina ugu weynaan qanaysa ugu dambeeyo oo dhimanayo ninka boqortooyada wuxuu dhahay ninkan dahab ala siiyo ala qiimeeyo wax ala siiyo waxaas inoo dhahay hadda sheekadan wax ka fahanti kulligood halkaada leedheen laakiin ninka ugu dambeeyay hadalka afkiisa ugu soo baxay kala bedeli soo ka fiiriso hadalka afkaaga soo baxaayo muxuu yahay qaatin waagi hore hooyaa jirtay yaa lagu dhahay hal cunugay dhashay ciyaalka ma dhali karaan marka wiilkeed mar walba ku banaanka aad baa soo dili jiray marka way fikirtay waxay dhahday cunugayna walaalaha haas way dhahday marka waxay aaday meesha oo ciyaalka hooyadood aabood inteen law wiil ay ka soo qaadatay meesha inay koriso oo wiilkeedana walaal ay u haastaan marka haweenkii markii la gaaray iyada faqiir ahayd laba rooti bas ay haasa labadaas rooti cunugeed koodi ma sii jirin wax waxay sii jirtay labada wiil ee banaanka ee ka keentay gacanta ka saari jirtay hal iyo hal kale sii jirtay ka bacdigiisa waxay dhihi jirtay walaalkiina nus ma ka sii siino marka qof walba muxuu sameynay nus walaalka oo siina kan kale tan muxuu sameynaa nus oo walaalka siina marka walaalka muxuu haastaa dhiigeeda oo yahay hal xabba toosan ciyaalkana maxay haastaan nus ay kala haastaan laakiin maskaxdooda maxaa ku jirto inay hooyadan iida koodi ciyaalkan ay soo dhaweysatay ahob inaa storygan wax ka qaadata